آداب الجلوس fadhiga aadaabta uu leeyahay gaar ahaan dadka wadooyinka fariisanayo oo wadooyinka intay fariisaan hadan ku sheekeysana ayuu ka hadlayaa aadaabta loo baahan yahay qofka wadada fadhiyo aadaab noocee ayaa laga rabaa an abi saciid al-khudri radiyallahu anhu qaala wuxuu yiri saxaabigan qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay wuxuu dhahay iyaakum waxaan idinka digayaa idinka iyo wal juluusa inaad fariisataan بالطرقات ودوينك نبي عليه الصلاة والسلام صحابي سحوك ليهاي روحان إذن كدقايا وأن إذن كريبايا إن أتفديستان ودوينك ومركز أتكشي كيستان قالوا وحي هذا مركز يا رسول الله رسولك إلهيو ما لنا بد كما معرنو وضد إنان فريسنو إنان كشي كيسنو إنان كلا ورقاضنو كما معرنو من مجالسنا فدقان أن فديسنين ودوينك جدتك نتحدث فيها وانا كشي كيسنا وضد عن فريسيني رسول كلا مركا كوات كما مارنو مركا لبادنا عن كشي كيسنا وان كلا ورقادنا نبي حيري فأما إذا أبيتم أما حداد ديدان وآد ديدان إناد كتكتان ودوينك إلا المجلس إناد فريستان مويه فأعطوا سيا الطريقة جدك حقه وحقي سسيا جدك إناد كتكتان وميلك الآد فريستان مديدين ها جدك مركز حقي سي حق بولي حي قالوا حيرا صحابة رضوان الله عليهم وما حقه رسولك ليه جدك حقي سمحوه حقه نقربه قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام غض البصر أرجع إن الله بتامرك كوات أرجين إنه نقضى مطلابا أو حوسية وهي وضم مركات فريسو وحالجيا وإن أي صومران قف حنوسنا صومركر قف محارج المرجيسن qof si kala u muuqdo qof dumar soo mari karto dad badan baa soo mari karo dumarkan ay ugu badan yihiin maanta waxaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu na amray araga inaan laabno gaar ahaan dumarka inaan araga ka laabno ayuu na amray qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ragan waa la amray dumarkan waa la amray marka wadada marka taaganta waxa laga yaabaa qof rag inuu soo maro ama qof dumar inay soo marto ama qof si kale inuu soo maro markaas waxa la rabaa dadka araga inaad ka laabato هذا دتك إنها كتولين هذا فيرين وعيبته هذا فيرين أهل دونا أرجع على لابته كو لابد كلواده وكف الأذى يمكن إن دتك كإلالسو إن دت لبته أما أفكار أما جعنت هذا قفا صومري مركزات حمنيسا واحد كشيجيسا واحد فلقادينيسا أما حبات كل فنيسا أما هو حيست أما هو تيات كحلينيسا حردنا كف الأذى لبعض ضاد يشرط هذا إن دتك كإلالسو ورد السلام مد صدحان صلانت إن أدردسو قفكي كل سلام هذا ودا أجوبته أم استعجنت أم أتفلس أم أتفلسيت قف الله قفكي كل سلام وأنا صلانت أدردسا أنا أذي ودا فريستي هذا أدرهم إن الغو سلام قول فريسو لكن ودا هذا فريسو ده ضد بمراي والغو سلام قف مصنع يعطيه صلانت وأنا أدردسا والأمر بالمعروف يو وناج إن أتفرتا والنهي عن المنكر حماة أتريبتا wadada intaad istaagan tahay waa inaad noqotaa qof daayica qof soo maraya wanaag u sheeg waxba ka khaldan xumaan buu sameeynaa waxba uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu san rabin ayuu sameeynaa koo waa inaad horto xumaanta aad ka reebtaa wanaaga aad amartaa waa inaad daayica noqotaa qof dadka diinta ugu yeerayo xadiidkan waxa soo saaray Bukhari Muslim ayaa soo saaray marka xadiidkan wuxuu ka hadlayaa wadooyinka xaq ay leeyihiin arga inaad laabtid dhibaato dadka aad ka reebtid maxaa la jira sharta dhibka laga nabad galo dadka inaad salaad markay ku salaamaan salaanta aad ridisid wanaag inaad fartid xumaanta inaad reebtid sidoo kale waxa ku jira waa imaadatul ada aan tariiq waxyaalaha dadka dhibay wadada dhaxyaalo inaad ka qaadid aad meel aan dadka dhibina inaad geysid sidoo kale waa irshaadu sabiil wal a'ma qofka lunsan oo wadada ka lunsan hadaad aragtid inaad wadada u toosisid qofna wadada kala garan waaye meel kale ayuu joogaa wadanku uu ku cusub yahay adiga wadada marka taaganta aad ku sheekaysanaysan qofkaas haduu imaado waa inaad meesha u rabo aad u toosisaan iyo qofka in dhoolka aan wadada aan gudbi karin waa inaad gudbisaa marka nabiga kaleey salaatu wasalaam muhiimad u noosha waxay tahay wadada ka tag oo ha fariisin hadaad wadada istaaganta aad fadhisidna u fariiso adigoo dadka wax ku anfacayo adoo daacay oo dadkan wax ku anfacayo wadada fariiso markaas waa lagu ogol yahay dadana intaan sameyn karin
guriga iska fadhiisi way marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala xana waafajiyo khayrka ilaaha naga dhigo kuwa dadka anfaca khayrkan ugu yeero